بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسود وهذا درسيني سديدات سي سهلا أبرو لهجدا أفمايغا أما أفماي سيفي عن أبرو سي سهلا ما أنت درسيني وحكو سابسيني هاي لابق قيبوت أو أخ قيب أو دور محمد عن كبرنينو يسودو كاليتا قيب عن كبرنينو إريال عن كبرنينو يا خلقان إنو يالو marka mahmahooyinka ayaan ku hormaraynaa qaybta mahmahooyinka ayaan halka hadda ku hormaraynaa aan aragno saddexdan mahmahood macnaha ay kala xambaarsan yihiin ayaan arkaynaa saddex mahmahood ayaa halkan inooga qoran mahkamada koowaad waxay leedahay bakiil maalshay lambeen badan leh bakiil maalshay lambeen badan yar leh yanaha qofka bakiilka ah maalkiisa ama xoolihiisa qof been badan ayaa iska leh bakiil waa qofka bakiilka ah maalshay xoolihiisa lacagtiisa ama maalkiisa lambeen badan yalle qof been badan ayaa iska leh waa mahmahadaas koowaad way mahmahada labaad aan aragno mahmahada labaad oo halkan inoo qoran iyadan aan aragno mahmahada labaad waxayna leedahay baahna bakta malan aamo waan baahanahay bakti looma cuno baahna bakta malan aamo waan baahanahay bakti looma cuno macnaha si kastaad u duruufaysan tahay wax kasta la iskama qaato yani waxyaabo xun aan ku qalmin bani aadamnimadaada iyo shakhsiyadaada aan ku haboonayn la iskama qaato baahna bakta mal an aamow mahmahada saddexaad aan aragno halkan inoo qoran mahmahada saddexaad waxayna leedahay baada lan lahayne baal roogd baada lan lahayne baal roogd baadida qof aan lahayn ayay ag joogtaa baadi qof aan lahayn ayay ag joogtaa baada lan lahayne baal roogta baada qof aan lahayn ayay ag joogtaa marka saddexdaas mahmahood ayaa halkan aan kusoo qaadanay mahmahada koowaad waxay ahayd aan kusoo qaadanay bakiil maalshay lan been badan leh bakiil lacagtiisa qof been badan ayaa iska leh bakiil maalshay lan been badan leh mahmahada nooga xigtay waxay ahayd baahana bakta malan aamo waan baahanahay bakti looma cuno baahana bakta malan aamo mahmahada inoogu dambeyso halkan inooga taalay waxay ahayd baada lan lahayne baal roogta baadi qof aan lahayn ayay ag joogtaa mahmahooyinka saddexdaas ayaan ugu kaaftoomaynaa maanta aan aragno ereyada halkan inooga qoran oo ay tahay inaan maanta barano ayaan eegaynaa ereyada halkan inooga qoran waxay yihiin ereyada halkan inooga qoran dhowr erey ayaa inoo qoran marka aan eegno ereyada waxay yihiin halkan erey waxay inoo qoran tusaale ahaan maga iyo masabar ayaa inoo qoran waa maga iyo masabar maga iyo masabar ayaa loo bixiyey barsha biway barsha waa barkinka oo reer baadiya isticmaalaan oo geeda ka samaysan oo gacantaadan waa lagu qaadan karaa halkan ayaa la gelishaa markaad jiif iyo u baahatana nasasho u baahatana waa la isticmaalaa waxaa ku xigo ibir ayaa halkan inooga taalo ibir waa ibir caadi ah waa ibir p4 ben ayaa la qoraa ibir tiif ayaa inoo yaal halkan tiifku waa weel reer baadiyaha wax ku shubtaan masago ama yani wax lagu qaato waaye waa tiif inta badan waxaa laga sameeyaa magaarka ariga ayaa laga sameeyaa waa tiif jelmid waa jelmidka caadiga ah shaaha lagu karsado ama biyaha lagu qaato jelmid ayaa halkan inoo taalo jija ayaa halkan inoo taalo jija waxaa weeye huga xilliga roobka huga jija ayaa la dhahaa jija dawo waa dawacada caadiga ah dawo idin ayaa halkan inoo qoran idin waa bahashan oo ii sheeg idin madaha iyo idinka wax lagu karsadaa loo isticmaalaa midna waxbaa lagu karsadaa midna inta badan waxaa weeye qolka marka uunsi iyo wax ku shidanaysa ama haweeneyda ay ku uunsanaysa ayaa la isticmaalaa idin ayaa la dhahaa waxaa ku xigo raka waa rah caadi ah way raka sabuul ayaa ku xigo sabuul waa sabuulka galeyn uu noqon karaa masago ayuu noqon karaa ii sheeg yani sabuul baa la dhahaa sabuul shirif ayaa ku xigto shirif waxaa waye inta badan waxaa isticmaalo hablaha ayaa isticmaalo waa shirifta timaha lagu shanlaysto waa shirif alwaaxa inta badan iyadan ka samaysan tahay iyadoo caag ka samaysan waa la sameeyaa dhuure ayaa ku xigto waa dhuurada dabacsiyada caadiga ah dhuure gembir
inta badan kursi yar oo alwaax ka samaysan waaye. Gemberaa jiro, sidoo kale waxaa jiro wambar ayaa jirto. Wambartana magaarka lo-da ayaa iyadana iyo 4 lugood inta la habeeyaa laga sameeyaa. Wambarna waa la dhahaa. Tan waa gember. Gemberka inta badan waa mid gaaban, dhowr hab guriga yaalo, waa la isticmaalaa iyagana gember ayaa la dhahaa ama gamber. Migil, migil, migil waa rag. Migil waa rag ama male rag. Migil, migil. Tusaalaan qofka marka la amaanayo waxaa la dhahaa migil abooshay. Migil abooshay waa qof yani rag aboohooda ama yani qof wax tar leh waay. Migil abooshay, migil. Faanus ayaa jirto. Faanus waa faynuusta caadiga ah la shidan jiray kulli xillidan dambe meelaha magaalooyinka laguma shito. Waa faanus, faynuusta caadi ah waay. Qulo ayaa jirto. Qulo, qulo, qulo. Quladu waxaa la dhahaa inta badan waxaa laga sameeyaa bahashan waa geedahan qudaarta ah. Inta badan waxaa laga sameeyaa khajaarka oo kaleeto oo noociisa bedelan ayaa noocaas loo baxaa jirto. noocaas inta la qalajiyo waxyaabaha miraha iyo gudaha ku jira laga nadiifiyaa, waxaa laga dhigtaa weel caadi ama biyaha weysada lagu qaato ama caanaha lagu qaato. taas waxaa la dhahaa qulo. mahmaa waxaa jirto dhehayso dogon idira la barate walaada mayn dhiibado. dad qof doqon ah oo waxaan idira la ku dhaceen markasta taas bartay wax kasta idira loo ku saweynaya, sidaas darteed qoladaada looma dhiibto hadii kale uu ka jibinaya. koor ayaa jirto. koor inta badan waa mid geel loo xirwayo, waa koorta caadiga ah. libee waa libaax. libee. mareer waa miro la cuno, geedka ayaa waxaa la yiraahdaa mareerta caadi ah waay. nirig waa waabanka ama canuga yar oo maxaa la dhahaa geela ayaa nirig la dhahaa. nirig hadii la khafiifin waxa way waa midka dhedig ay noqonay. nirig hadii la dhahan waxa way waa midka labka ah waay nirig. ming waa ming guri caadi ah way minka inta badan agal Soomaaliga ama ming guri hata waa la dhihi karaa waa ming. wigala jarteedan weyish waa wigel haruubku ku heli gondow shamaykin jey mahmaa saas dhahaa jirto. wigel waa wigel. hangraar ayaa jirto. hangraar dibqalo inta badan dadka qaniino aadka looga xanuunsado oo sunta ah ayaa hangraar la dhahaa. hangraar. yeemba waa yaambada. dhowr nooc ayaa jirto. mid falla la dhahaa, beeraha lagu fala ayaa loo isticmaalaa. midna gortog ayaa la dhahaa, waxa way waa beeraha marka la lundhawaayo ama yani inta la abuurayo la isticmaala. nooc u samaysantaa ayaa kala ah, laakiin waa guud ahaan waa wada yaambo ama yeemba. nyaanyur ayaa jirto. waa nyaanyurta ama bisada. nyaanyur waa nyaanyurta ama bisada ayaa sidoo kale waxaa la dhahaa nyaanyur. ereyada hal mar si boobsiisa aan dulmar ugu sameyno. barshe waa barkinka. ibir, tiif, jelmed, cica, dowe, idin, raka, sabuul, shiraf, dhuure, gember, migil, faanus, qulo, ikoor. libee, mereer, nirig, iming. wigel, hangraar, yeembe iyo nyaanyur. darsigeena maanta halkaasaan kusoo koobaynaa. aada u mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.